aysiduwaha hay'adda dhowrista iyo tayada Somaliland ee gobolka Togdheer Cabdifataax Axmed Hurre oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda dhowrista iyo tayada Somaliland ee gobolka Togdheer ayaa soo kormeeray shirkadda Saxansaxo Group oo soo saarta biyaha iyo sharaabka waxaana ku soo dhaweeyay shirkaddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Timir maareeyaha guud ee shirkadda Saxansaxo Group iyo sidoo kale Ahmed Hussein Jaamac gudoomiyaha boardka Saxansaxo Group ahna madaxa maamulka maaliyadda ee shirkaddaasi Saxansaxo isuduwaha iyo shaqaalaha ayaa waxay soo kormeereen isla markaana soo indheeyeen qaybaha ay ka kooban tahay shirkadda iyo sida ay u shaqeyso isla markaana ay eegayeen tayada iyo wax soo saarka shirkadda Saxansaxo Group ee gobolka Togdheer waxaana ugu horreynba ka warbixiyay kormeerkan ay maanta ku tageen shirkadda Saxansaxo Group ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isuduwaha hay'adda dhowrista iyo tayada Somaliland ee gobolka Togdheer Cabdifataax Axmed Hurre waxaana ka mid ah hadaladiisii warshada Saxansaxo ee sharaabka iyo biyaha soo saarta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsan inoo soo dhaweeyeen maanta way taariikhdu tahay 8 bisha March 2022 hay'adda dhowrista gobolka Togdheer iyadoo gudanaysa mid ka mid ah waajibaadkii ay qaranka ugu xilsaarnayd waxay halkan ku timi booqasho isugu jira indhaindhay kurgelid iyo la socosho warshada soo saarta biyaha iyo sharaabka ee Saxansaxo shaqooyinka caadiga ah ee maalinlaha ama activity-ga maalinlaha ee hay'adda ayay ka mid tahay inay booqashooyin iyo kormeer iyo la socosho iyo baaris ay ku samayso goobaha ganacsiga iyo warshadahaba muhiimaduna tahay in la ilaaliyo wax soo saar kala duwan ee meelaha yaala ama alaabooyin kala duwan ee yaala goobaha kala duwan ee ganacsiga iyo warshadaha halkan markaan nimo waxa weeyaan waxaan eegaynaa ugu muhiimsanaa inaan eegno bal production system-ka ay warshadu samayso iyo heerka sida qaabka wax soo saarka warshadu samayso heerkeeda tayo ayaanu indhaynayno eegaynay waxaan kaloo aan eegaynay hertayeedka xilligan warshadu ay isticmaasho maadaama hertayeedka qaranka aan wali la faafin waxyaabo kale aanu eegaynay waxa kamid ahaa heer cabirka ama metrology system-ka warshada oo tusaale kale biyahan hor yaala ama sharaabkan hor yaala inta ku qoran inay dhab tahay taana waan soo aragnay waxaan kaloo eegaynay shaqaalaha ka shaqeeya goobaha wax soo saarka ama production site-ka inay qaabkay warshadu uga controlsho inay ku dhashaan cayayaanka yar ee microorganismska inay gudbaan wax soo saarka ay sameynayaan ama alaabada ay sameynayaan u gudbaan oo